daawade sheekadii maanta waxay ku saabsan tahay gawar daneysata ama gawar ay isla jecel wax walba ayada kadib markay ninkeeda isku dhaceen sida ay ugu argoosatay ayaa waxay ahayd si aan lama filaan ama aan qof laga filaynin. haddii aad hore iila joogtay waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. haddaad igu cusub tahay soo dhawow kanalka subscribe saar, leegtu waa muhiim, kumandigana waa adiga ra'yigaaga. aan gudaha u galno sheekadeena maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي القالية وولاشين الزيو وإذن الله أنا وعافمات قوا إن كانوا عايزين رجينا عافمات iyo bashbash iyo barwaaqo intana xanuunsan ilaahay hanu caafiyo inta caafimaadka qabtana Allah subhanahu wa ta'ala ha u ziyaadiyo. sheekadii maanta waxay ku saabsan tahay gabar lagu magacaabo Linda oo ku dhalatay dalka Mareykanka. waxay dhalatay 1943 xaafad lagu magacaabo Ashland State-ka Kentucky. Linda barbaarinteeda iyo markii ay yareed ayaa waxay ku soo barbaartay ama ay ku soo kortay jeclaan wax walba in ay isku rabto taas ay u diidi jirtay walaalaheeda. kuriimo kadib way ay barbaartay waxay noqotay gabar weyn, weli waxay haysataa dabeecadii ay ku dhalatay ama ay ku soo barbaartay taasoo ah in wax walba ayada ay isku rabto. Linda waxay caan ku ahayd ilaa iyo yaraanteeda markii waalidku uu keenay walaalaheeda iyo ayada alaab ama wax walba oo waalidka la soo gaclo. Linda ayada kaliya ayaa isku rabtay. kadib markii iskuulka la gaaray xataa ma aysan sameey jirin in ay asxaab sameysato, waayo Linda wax alla wixii maskaxdeed ka maanta ay sameysan jirtay. hadday saaxiib sameysanaysane saaxiib ayada ku danaysanaysa oo kaliya ayay sameysan jirtay, waayo qoftan waa qof nafsadeeda kaliya wax u rabto. kadib iskuulkii way is anfici waayeen, waalidiintii wax walba hadday sameeyeen si ay wax u barato. Linda waxay ahayd qof maskaxdeeda wixii ka maago sameyso sidaan horena igu sheegay. kadib Linda ayadoo da'yar ay wixii gabi ahaan diiday in ay wax barato. kadib sanadka markuu ahaa 1956 ayadoo 13 jir ayay guursatay. Linda iyo odaygeeda markii ay isguursadeen kadib guurkooda wuxuu ahaa guur caadi ama guur dabiici ah. Linda markay jirtay sanadka 18aad waxay ifka ku soo biirisay 4 ciyaal. kadib waxay sameey jirtay mar walba waxay waqti ku soo qaadi jirtay banaanka. Linda mar walba waxay u badneed in ay caruurta iskaaga dhex tagto ayadana danaheeda banaanka ee aadsato. mar walba way ka tagi jirtay caruurta keligooda ayadana way soo daneysay jirtay. kadib waxaa ogaaday ninkeeda in ay naagtan waqtiga ugu badan ee ku qaadato banaanka. wuu weydiiyay wuxuu yiri maxaa caruurta iskaaga tagtaa oo adiga kaliya ah u baxdaa. mar walba waxay isku dibiri jirtay waxaan aadsaday saaxiibaday, waxaan waqti la soo qaadanaa asxaabteeda. mar walba waxay ku mamarsiyo jirtay in ay saaxiibadeeda waqti la soo qaadato. mar walba oo odaygeeda weydiiyay waxay dhihi jirtay saaxiibaday aan jiray ama saaxiibaday aan jiray. ninkii Linda wuxuu ahaa nin iska maskiin ah. mar walba ay dhahdo asxaabteeda ayaan ku maqnaa ama saaxiibaday ayaan jiray, wuu iska aamini jiray sababtoo ah ma uusan jecleen buuq tiro badan ama foodo in ay dhexdooda ka dhalato, waayo xaaskiisa uu jeclaa. Linda markay jirtay 18 sano waxay baratay wiil lagu magacaabo Charles. asigana wuxuu jirtay 17 sano, waxay ka weynayd 1 sano. Linda isbarashadooda kadib waxay isku bedeshay jecel. Charles wuu ogaa in Linda ay leedahay 4 caruur ayna tahay xaas. kadib mar walba wuxuu ku qanci jiray in ay ninkeeda iska soo furto asigana ay isguursadaan, laakiin taas ehelkiisa ma ogolaanayo, waayo asiga waa wiil yar. xataa mujtamac ay ku dhex noolyihiin waxay ka noqonaysaa wax ceeba. Lindo waa xaas caruur leh, asigana waa dhalinyaro hadda soo baxaayo. laakiinse Linda wax badan ayay ka fikirtay taas. horena waa idin sheeg waxayba u dhalatayba ayada wax walba nafsadeeda jecel in ay sameyso. kadib waxay go'aan qaadatay in ay ilmaheeda ka wadato aabahan iska furto si ay ugu go'do Charles, ayadoona fiirinba ceebta mujtamaca ka soo gaarayso iyo ehelkeeda. kadib waxay go'aan ku gaartayba in ay xaafadan yar iskaaga tagaan kadib sida isku guursadaan ayada iyo Charles. sida hore niigu sheegay ehelkiisa maba u ogoleenba in uu guursado, laakiin asaa hore wuxuu ugu balan qaaday in uu dadkiisa u soo gooyi doono ayada iyo caruurteedana uu ilaali doono. 1962 ay waxay guursatay
guurtay Charles. xaafadoodii hore Ashland way ka soo guureen waxay u guurtay xaafad lagu magacaabo Hammond ee state-ka Indiana. Charles iyo Linda waxay iska ahaayeen qoys iska yacniya waayo Linda ma aysan shaqay jirin waxay guriga ku hay jirtay caruurta. Charles wuxuu ahaa shaqaale wuxuu qaas u sameey jireen daaqadaha guryaha. Charles guurkii kadib waxaa mufaaja'a ku noqotay in uu mas'uuliyad adag qaaday waayo noloshiisa waxay ahayd nin iska dhibaataysan kadib wuxuu aabbo u noqday 4 caruur iyo hooyadooda. saas ayada nolosha uu tahay cariiri ayuu haddana mar walba wuxuu ku dadaali jiray ama culays uu isku saar jiray si ay Linda iyo caruurteeda marnaba aysan baahan waayo asiga ayaa mas'uuliyadda soo qaaday. shaqadiisana waxay ahayd guryaha daaqada la saaro joogtana muusa u heli jiray mar walba waqtigiisa badan wuxuu ku soo qaadan jiray banaanka si uu u shaqeeyo ama uu u keeno maanta wax oo mushaara. kadib odayga oo intaasoo mushaakil haysato Linda waxay ahayd qof ayada isku mashquulsan weligeed ma aysan ku dhihin waxaa tahay aabbo fiican ama waxaa tahay qof wanaagsan oo mas'uuliyadda uu qaaday yacni oo dusha saartay isku dhiba inuu ka soo baxo because maba ogabo waxaasoo dhan. Linda waa qof mar walba ayada isjecel. 6 sano kadib Charles aabbo ayuu noqday wuxuu u dhashay cunugii ugu horeeyay ama curudkiisa taasoo Lindana ay u noqonayso cunugii shanaad. Charles wax walba rafaad ha ku soo maro oo biilka gurigiisa rafaad ha ku soo shaqeeyo kida wuxuu ahaa aabbo mas'uuliyad hayo laakiin xaaskiisa lacagta uu u keeno ama uu dhaho masruufkiina waaye ama wax walba guriga loogu baahan ku sameeyso badanaa waxay ku isticmaal jirtay in ay makeup ka soo samaysato ama shopping ka soo samaysato dharka ugu qaalisan ay ka soo iibsato in yaroo soo harta ay ilmaha u bibiidi jirtay because korkaba kama saarna caruurteeda macal odaygeeda wax ay u naxdo ama ay u joojiso maba jiraanbo. muddo dheer noloshaas ayagoo ku jiraan ayaa maalintii dambe waxaa faajac go'ay leerka guriga taasoo u sabab ah Linda maba aysan bixi jirin fawaatiirka guriga imaado hadduu ahay taleefan hadduu ahaa leer. Charles ayaa taas wixii la noqotay mid mufaaja'a ah. Charles leer dimashadii asigoo la yaaban ayaa hal mar waxaaba u wada yimaadeen dukaamadii ay deenta ka soo wada qaadi jirtay. kadib markuu xaaskiisa la kulmiyo ku yiri maxay tahay sidaan maxaa lacagta noogu bixi weysay ani wax walba aan soo shaqay adaan ku keenaa maamulka adiga ayaa iska lahay. markaas wixii uu ugu jawaabtay ani waa xanuunsanahay waxa igu dhacay kansar sidaa darteed ma rabin in aan ku sii dhibaateeyo ama aan adiga ku murjiyo taasoo ay ku beeninayso. Charles aad ayuu ugu naxay wuxuu sameeyay dadkii ayuu la macaamilay wuxuuna ku yiri bil walba kiskis idinka sii mooyaane ma wada bixi karo deyntaan. shaqadii ayaa shaqo u sii fuushay wuxuu noqday nin aan bahurdin habeen iyo maalin si uu xaaskiisana cudurka beenta ugu daaweeyo deentii uu iskaaga bixiyo ilaan asi waxba kama ugu rumaystay Soomahan. naagtii lacagta la siiyo wili holaheed ay ku sii wadatay oo beenteeda maanta ka dambeysay sidii ay u sheegaysay. mararka qaar markuu is dhaho adiga orod la ku jirtaa xaaskaaga waqti sii oo la aad dhakhtarka ay waxay ahayd mid ka hor timaado waayo ma ogolo in ay fashilanto. asigana wuxuu isdhihi jiray way ku naxay wili ayada kaligeeda rabtay in iska aadi iska daa. muddo dheer kadib Charles wuu shakiyay markuu shakiyay ayuu wuxuu dabagalay xaaskiisa wuxuu aasay doctorka ee u sheegtay in uu cudurka ka helay. kadib magaceeda meesha waa laga soo helay laakiin cudurka wuxuu noqday mid beena waayo dumarka sidoodaba way iska xanuunsanayaan dhakhtar way ay tagaan laakiin dhakhtarku way tagtay oo magaceedu sijilo yahay laakiin xanuunkaas iyo wax u dhow ma qabtabo hatta waxa loo sii raaciyay in aysan ayaamahan imaanbo. Charles asigoo talo ku labooday ayuu guriga ku soo laabtay beenta xaaskiisana soo ogaaday. Charles asigoo yaaban ayuu gurigiisa ku soo laabtay wuxuuna sameeyay journal ayuu ku faafiyay nin alla ninkii xaaskiisa deensiyo in uu asiga shaqo ku lahayn waayo deen badan ayuu guday ilaa markaas lagu sii lahay oo gudistiisa uu waday. markaas ayay aragtay joornaaladii in ay xaafadihii ku faafeen kadib ayay baxanaaqdaybo waxay dareentay ninkan in uu beenteedii ogaaday ma aysan la hadlay maxaa sidaan u samaysay ma aysan dhihin
gabi ahaan wuxuu guriga u soo shaqeeyane asiga ayaa maamuli jiray si uu deentiin iskaaga gudo ciyaalkan uu u nooleeyo sida horena uu sheegay wuxuu ahaa aabo fiican oo ciyaalka si fiican u dhaqaaleysto ayada laakiin maxay ku fikirtay waxayba go'aan ku qaadatay hadduu sidaan sameeyey in uu ku shalay doono tilaabadan uu qaaday